صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 بشهر رمضان صوم 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 سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سنذيو فرض كأوغا فقرا سكذا سيا سقذ رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا سقذ رحل الكيتوسا ربي أسجود بريا ربي أركوع سجودا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحلقتي لبعض ee ku saabsanayd duruusta iyo casharada aan ka baranayno goobtii weyneyd ee Beder. waxaynu maanta wax ka qaadan doonaa hal adayga ciidanka muslimiinta ee ka qayb galay dagaalka Beder iyo sida miiganaanta iyo mintidnimada leh ee ay uga qayb galeen dagaalku. waxay ahayd mid run ahaantii farxad gelisay hoggaanka sare oo ah rasuulka Muxamed calayhi salaatu wasalaam si uu u fuliyo isagana qorshaha dagaal ee uu dhigay. taasi had iyo jeer marka ay dhacdo ciidanka dagaalka la keenay inuu yahay ciidan miigan, ciidan mintid ah, ciidan soo majeeste ah, waxay farxad gelisaa hoggaankiisa iyo sidii uu markaasi u fulin lahaa qorshaha iyo qaabka uu u dhigay dagaalka, isaga oo ku kalsoon kolkaasi guul iyo nasri inuu najaxo. waana sida dhacday dagaalkii Beder. waxaa runtii taas tusaale cad inoo ah oo aan ka qaadan karnaa amba aan ka dheegan karnaa sida uu ka warramay Cabdiraxmaan ibnu Cawf, saxaabigii weynaa, labadii dhallinyarada ahaa ee hareerihiisa ka baal dagaalamayey midkoodba mar uu odhanayey abujahal adeer itus. kolkii dambe ee dagaalku uu bilaabmayna uu u tilmaamay oo yidhi abujahal waa ninkaasi, isla markaana uu sheegay inay sida galaydhka ay ku haadeen oo ay dhulka dhigeen, ayaga ayaa dilay. waxay taasi runtii inoo tilmaamaysaa macnawiyaadka dhallinyartii muslimiinta ee dagaalka ku jirtay iyo mooralkoodu siduu u sarreeyey ayay ku tusaysaa. maxaad u malaynaysaa raggii iyagu ka waaweynaa xagga da-da iyo cimriga haddii da-yartii amba dhallinyartii muslimiintu kaalinta intaa la eg ay galeen? waxay ahaayeen kuwo carbisan, waxay ahaayeen kuwo iimaanku buuxshay oo garanaya qadiyadda ay u dagaalamayaan. waxaa kale oo iyadana casharada aan ka baranayno amba aan ka qaadanayno ka mid ah ilaahweyne subxaanahu watacaala sidiisaba wuxuu u gargaaraa, taakuliyaa, u kaalmeeyaa, uu gacan siiyaa subxaanahu watacaala addoomihiisa mu'miniinta ah ee dhabta ah marka ay dagaalada iskaga hor yimaadaan cadowga ilaahay. taasi waa tii dhacday maalintii Beder oo kale, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey ciidamadiisa malaa'igta ah qaar ka mid ah. waa sida maalintii axsaab oo kale ta dhacday ee ilaahay uu adeejiyey dabaysha. mar aliyaale iyo mar kasta oo ciidamada mu'miniinta dhabta ah ee ka dhabeeyey iimaankoodu ay dagaal iskaga hor yimaadaan cadowga ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu gacan siiyaa mu'miniinta, ayaa uu garab istaagaa subxaanahu watacaala. taasoo ilaahay subxaanahu watacaala uu kitaabkiisa majiidka ah ee sharfan uu ku leeyahay
wakaana xaqan calayna nasru lmu'miniin. ilaah wuxuu ina leeyahay waxaa annagana saaran in aanu u hiilino mu'miniinta, addoomaha mu'miniinta ah inaanu taakulino oon u gargaarno ayaana saaran. mar kale ilaahay jala wacalaa waa ka ina leh in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu. ilaahay wuxuu difaacaa subxaanahu watacaala kuwa mu'miniinta ah, ahlu iimaanka ah ee iimaankoodu uu dhabta yahay. casharada aynu ka baranayno amba aynu ka qaadanayno dagaalkii beder waxaa ka mid ah istidlaac, waa qaabka sahanka iyo horbaxanshiyaha amba ciidanka xagga hore sahanka oo ah muslimiinta. waxaan arkaynaa runtii dadaalka badani ay sameynayeen, dhaqdhaqaaqa ay sameynayeen ciidamada muslimiinta u qeybsan xagga sahanka iyo ilaalada si ay u helaan macluumaad dheeriya, si looga badbaado in ciidanka muslimiinta si aan lagu talagelin loo gaado amba dhibaato ayan filayni ay ugu dhacdo. waxyaabaha ay ciidamada sahanka amba ciidamada ilaalada muslimiinta korjooga ah ay mar walba ururinayeen waxaa ka mid ah in ay macluumaad dheeraada ka helaan meelaha cadowga dhulka ka joogo, inay si fiican warkeeda usoo sugaan. run ahaantii taasi waxay inooga muuqanaysay labadii dhalinyarada ahaa ee biyaha u dhaaminayay qurayshta ee lasoo qabtay ee laga waransiiyey, kolkii dambena su-aalaha la weydiiyey ciidanka meesha maraya inta uu la egyahay tiradiisa asaanay sheegin. markii dambe nebigu si fudud ayuu uga helay oo wuxuu yihi maalintii imise ayay qashaan, maalintii imise neef bay qashaan. waxay yidhaahdeen maalina 9 maalina 10. taasuu nebigu kala soo baxay calayhi afdal salaatu aska tasliim ciidanka meesha maraya ee qurayshtu inuu ka kooban yahay inta udhaxaysa 900 ilaa 1000 inta udhaxaysa. sidoo kale ciidanka sahanka qurayshta abu sufyaan qaafiladiisa intuu kasoo hormaray meel loogu tilmaamay in ay 2 nin fadhiisteen oo awr wata ayuu yimi, saaladii buu burburiyey. dabadeedna waxa uga soo dhex baxay laftimireedkii. wuxuu gartay kolkaasi raggaasi inay ahaayeen rag ka yimi madiina. waxay taasi labada dhinac bay noo tilmaamaysaa, labada col amba labada ciidan sida ay ugu dadaalayeen in ay macluumaad ay helaan. mabda'a gacan horaadka amba dhirbaaxada koobaad in cadowga lagaga horeeyay qiimo weyn bay ku fadhidaa xagga xuruubta amba dagaalada. waxay muslimiintu mar walba isku dayayeen in ay meesha habboon iyo goorta habboon ay iyagu mubaadarada dagaalka ay yeeshaan. waana runtii ta ka muuqanaysa dagaalka uu nebigu hogaaminayay calayhi salaatu wasalaam. qodobka kale oo qodobadaasi aynu tilmaamayno waxaa ka mid ah hogaanka. waxaa ka muuqanaysay rasuulkeena suuban calayhi salaatu wasalaam arrimo xagga hogaaminta goobta dagaalka. waxaa ka muuqanayay geesinimo iyo dhiiranaan zaayid ah. waxaa ka muuqanaysay in uu nebigu kontaroolaya acsaabtiisa. waxay ka muuqanaysay guntinta uu guntayay nebigu shirar dagaalka ka hor, dagaalka dhexdiisa iyo dagaalka dabadiisa, iyo sida nebigu uu u simayey saxaabadiisa iyo isaga ay u sinaayeen. waxa uu nebigu dabaqay calayhi salaatu wasalaam isagoo markaa ah hogaankii sare ee ciidanka muslimiinta in uu doortay halkii ku habboonayd, meeshii ku habboonayd ee dagaalka iyo goortii ku habboonayd. waana arrin runtii aada iyo aada qiimo weyn ugu fadhida dagaalada iyo goobaha dagaalada. qodobka kale waxa weya dabdu nafs, xakameynta uu nebigu naftiisa uu xakameynaya calayhi salaatu wasalaam, macnawiyaadka iyo moralka aadka iyo aadka u sareeya in isaga iyo saxaabadiisaba, iyo caqiidada toosan ee ciidankaasi uu lahaa. waxaa soo muuqanaysa oo dagaalka isaga beder ka dhex muuqanaysa
raadka ay leedahay yacni xakameynta nafsadda amba nafta ee adag, macnawiyaadka aadka iyo aadka u sarreeya amba mooralka sarreeya, caqiidada raasukha ah ee ku dhaaban muslimiinta si ay muslimiintu uga guuleystaan ugana lib helaan cadowgooda qurayshta. waxaa kale oo runtii casharada aan ka baranayno amba aan ka qaadanayno ka mid ahaa tabaabulshaha ciidanka muslimiinta ee aadka u sarreeyey, gaar ahaan markii ciidamadu isku soo dhowaadeen oo ay kaabiga isu saareen. tartiibaadka muslimiintu runtii waxay ahayd markii labada col isku soo durkay amba isku soo dhowaaday mid habboon xagga muslimiinta, waxaanay ahayd mid habaysan oo qaab aada iyo aada u sarreeya loo qaabeeyey, oo ciidanka muslimiinta ee muqadimada iyo mu-akharada iyo maymanada iyo maysarada iyo dalaa'icda qaabka ciidanka muslimiintu uu u qaabeysnaa, oo ciidanka xagga midigta iyo ka bidixda xagga hore qalbiga ah iyo xagga dambe iyo ciidanka sahanka amba horbaxanshiyaha usii ah ee eegiga ah amba korjoogaha, intaas oo dhan ayaa runtii ciidanka muslimiintu uu ka koobnaa. ciidankaasi sahanka ah amba ilaaladiihina waxay kasii horeeyeen in badan ciidanka muslimiinta si aan loo gaadin amba aan looga farkandhaxsan ciidanka muslimiinta. tartiibaadkaasi muslimiintu ay maalintaa beder ay yeesheeni weliba markii ciidanku isku soo dhowaaday waxay u dhigantaa si buuxda tartiibaadka xoogaga amba ciidamada nidaamiga ah ee weliba casriga ah ee cusub qaabka ay u qaabaysan yihiin, weliba dagaalada dhulka faydan ee saxro ah ka dagaalama. dhanka kale qaabka dagaalka oo casharada aan ka qaadanayno bedere waxay muslimiintu adeegsadeen markii ugu horeysay usluubu saf, qaabka isa safidda oo ciidanka inuu safto dagaalka u safto marka ay dagaalka la gelayeen qurayshta. waa habkii ugu horeeyey ee ay adeegsadeen saxaabada rasuulku markii ugu horeysay, halka ay qurayshtu dagaalkoodu uu iska ahaa dagaal yaacaya oo aan habaysnayn amba aan nidaam lahayn oo isdhexyaaca. waxa uu adeegsaday rasuulka amba uu awooday in uu wada kontaroolo amba uu wada xukumo xoogagiisa, qeybta uu dagaalka gelinayo iyo qeybta kaydka ah ee uu xaaladaha yacni mararka qaarkood uu ugu talagalay. intaba waxay ahaayeen qaab aada iyo aada u sarreeya ayay ahayd. waxaana runtii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu si lama filaan ah u adeegsaday qurayshta xaggeeda usluubtaasi, usluubka dagaalka ee safka, waana tab aysan carabtu hore u aqoonin markaa iyada ah amba dagaalada aysan ku arki jirin baa loo adeegsaday. waana qaa'id amba hoggaan sare oo cabqari ah oo abwaan iyo maahir ku ah tabaha iyo taatikada dagaalka oo ayuunbaa tan oo kale adeegsada. waxay ahayd usluubka safku usluub ku cusub carabta sida aynu nidhi, waayo dagaalada carabtu ay geli jireen hadda ka hore waxay ahaayeen dagaalada yaacayda ah amba ku dhufo ka dhaqaaqda ah oo ah dagaal qaab baaliya oo dagaaladoodii hore ee qadiimka ahaa ay u adeegsan jireen. casharada aan ka baranayno dagaaladii beder dagaalka beder duruusta aynu kala soo baxayno waxaa ka mid ah ereyga afgarad. ciidamada muslimiintu waxay lahaayeen afgarad, waxay adeegsadeen dagaalka axad waxay awoodeen in ay isku gartaan intii dagaalku socday. waa usluub loo raaco dagaalada casriga ah ee cusub hadeerba la adeegsado. duruufta dagaalku ma ahayn duruuf caadi ah, waxaa lagama maarmaan ah in la adeegsado oo ciidanka isku midka ah ee dhan kasoo wada dagaalamaya kasoo jeeda afgarad ay isku afkartaan in ay yeeshaani waa arrin runtii lagama maarmaan ah. sababto ay tahay labada col amba labada ciidan ee iska hor yimi way isu ekaayeen, labaduba dee carabo unbay ahaayeen. xagga muuqaalka kore, xagga hubka si badan oo loo kala sooci karayay ma aysan jirin. haddaba mararka qaarkood marka la isdhex galo waxaa suroobi karaysay in layskala garan waayo. si markaa iyada ah laysu garto
waxaa la isticmaalayay oo ciidanka muslimiintu isticmaalayay afgaradka ah axad xagga qaabka maamulka weliba xagga ciidanka taakuladiisa amba taakulintiisa xagga dhaqaalaha mushrikiintu iyada sidaynu soo sheegnay waxay isticmaalayeen amba ay qalanayeen maalintiiba 9 rati amba 10 rati oo iyagu waxay ahaayeen kuwo kusoo talagalay dagaalka kani halka aysan muslimiintu dagaal caynkaasa kusoo talagelin. muslimiintu iyaga waxa ay sahaydoodu ahayd amba zaadka iyo jicsinkoodu dagaalka isaga ah sida qaalibka ah timir iyo sawiiq ayuu ahaa, waayo xaaladooda dhaqaale waxay ahayd mid markaa iyada ah waqtigaasi aada u liidata, isla markaana aan lagu soo talagelin dagaal sida tan oo kale ah oo baaxadda iyo xajmigaa lihi inuu meesha ka dhici doono. xagga biyaha muslimiintu waxay dhisteen darar ay biyo ka buuxiyeen si ay uga faa'iidaystaan waqtiga dagaalka, ama ceelashii kale ee Beder way awdeen si aanu mushrikiinta iyo cadowga uga faa'iidaysan. waana tabtii iyo tallaabadii uu ku taliyey Xabaab ibn al-Mundir, taasoo iyadana runtii casharada aynu ka qaadanayno Beder ay ka mid tahay shuurada oo aad iyo aad nebigu u adeegsaday oo dagaalka hortiiba uu lahaa ashiiru calaya ayuha alqowm, in badan uu ku celcelinayay ila taliya oo isiiya ra'yiga habboon wixii markaa waxay aanu ka soo degin nebi maxamed saxaabadiisa waxa uu ka qaadanayay talada in ay taladii habbooneyd siiyaan. taladii lagu najaxayna waxaa ka mid ahayd in xagga ceelasha la xigo oo nebiga iyo saxaabadu ay xaggaa degaan, ceelasha ay qabsadaan, ay xagga gadaashooda amariyaan biyaha, ceelasha kalena ay awdaan si aanu uga faa'iidaysan cadowgu. mushrikiintu maalintaasi waxaa la seejiyey biyihii oo biyihii muslimiintu ay gacanta ku dhigeen, waana qaababka ugu fiican oo colku marka dagaaladu ay dhacayaan hadba cidda uun biyaha qabsata ayaa runtii in badan ay noqotaa in ay guuleystaan. ilaa ay kaliftayba raggoodii geesiyaasha ahaayee dhiiranaa in ay markay oomeen ay haraadeen isku soo qaadeen amba isku soo kabaal qaadeen dararka muslimiintu ay samaysteen inay ka cabaan, laakiin uma suuro gelin waa lagu dilay. waxaa la yidhahdaa biyo la-aantii maalintaa Beder cadowga mushrikiinta Qurayshtu aysan helin biyo waxay ka mid ahayd raad ka mid ah raadadkii ay ku jabeen marka laga ilaahay guushiisa kadib, yacni iyaduna raad bay ahayd. xagga qanaa'imka amba qanimadii laga helay nebiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam Beder laga helay wuxuu u qeybiyey si siman. dagaalkii Beder ciddii ka qeyb gashay si siman ayuu nebigu caleyhi salaatu wasalaam uga simay saxaabadiisa. xagga qafaalka dadkii la qafaalay oo 70 ka mid ahaa mushrikiinta Qurayshta ah, waxaa la yidhahdaa 70 baa lagu dilay, 70na waa la qafaalay, 140 in ku dhowina way dhaawacantay. haddaba kuwii la qafaalay sidee loo galay? rasuulku hor iyo horaan wuxuu amray 2 ka mida kuwii la qafaalay in iyaga la dilo oo aan lalaba sugin inta Madiino la gaadhsiinayo. labadaasi waxay ahaayeen Nadar ibn al-Xaarith iyo Cuqbata ibn Mucayd. labadaasi waxaa loo ictibaariyey in ay ahaayeen mujrimi xarb ee aysan ahayn kuwo qafaal caadi ah amba gacanta sida kuwa kale la mid ah ayaa uu nebigu u ictibaariyey. waxay ahayn 2 aad iyo aad u qallafsan, colaadda iyo cadaawadda ay muslimiinta u hayeen aad iyo aad dhibaato badan geystay. adiyadda ay muslimiinta mustadcafiinta ah ku hayeen waxay ahayd mid xad dhaaf ah, sidaa darteeda waxay ahaayeen 2 ugu macangegsan uguna qallafsan in ay dhibaato ku hayeen dacwaddii islaamka. ta labaad raggii kale ee kasoo hadhay oo 68 ahaa waxa uu nebigu u qeybshay saxaabada, waxaanu yidhi istawsuu bilasaara khayra, raggan la qafaalay iyo dadkan qafaalka gacanteena ku jira yacni khayr u dardaarma, in si fiican loola dhaqmo oo si fiican loola macaamilo ayuu rasuulku sheegay caleyhi salaatu wasalaam. waxaana ay noqotay inay maal isku furtaan, maal inta u dhaxaysa 1,000 ilaa 4,000 oo dirham. ama kuwa fuqarada ah
waa iska sii daayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo aan waxba laga qaadin. kuwii iyagu wax yaqiinay oo afka iyo luqadda yaqiinay waxaa la yidhi 10 caruurta muslimiinta ka mid ah in uu qoraalka iyo farta baro. isla markaa casharada aan ka qaadanayno waxaa ka mid a dadkii ku dhintay Beder ee mushrikiinta ahaa. muslimiintu waxay u qodeen goof amba ceel, waxay u qodeen god bay u qodeen, halkaasay ku aaseen. taasina waxay dabaqaysaa tacaaliimta xarbiga ayaa oo laga baranayo nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ugu dambayntana waxa aynu halka kani runtii aynu arkaynaa sida habboon ee nabiyullaahi maxamed calayhi afdalu salaati wa askaa tasliim uu u maareeyey una maamulay goobtii dagaal ee Beder marka dhinac walba laga eego, hadday tahay xagga caskariyadda iyo haddii ay noqoto dhankanka dhinac walba marka laga eego habkii ugu habboonaa. waayo waxay ahayd mid uu lagu taakulinayo nebiga tacaaliimtii ilaahiga ahayd ee rabbaaniga ahayd. waxay ahayd markaa mid aan inaba wax surmaseegta aan lahayn, sidii ugu habbooneedna u dhacday. halkaas haynoogu joogto. wasala allahu calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam.